barnaamijka gorfaynta raadiyaha rugsan ayaad dhegaysanaysaan iyadoo cudurka covid-19 uu yahay cudur dilaa ah islamarkaana dad badan oo caalamka ku sugan saameyn uu ku yeeshay qaarna ay u geeriyoodeen ayaa waxaa jirta in weli saameynta cudurkaasi ay kusii baahayso dalalka kale ee caalamka. dalka Norway waxa uu ka mid yahay dalalka uu cudurkaasi uu kusii baahayo iyadoo dadka muhaajiriinta oo Soomaalidu ay ka mid tahay saameyn uu ku yeeshay. waxaana wararku ay sheegayaan in tirada guud ee dadka la xaqiijiyay in uu ku dhacay caabuqaasi ee dalka Norway ay gaarayaan 4655. waxaana la sheegayaa in magaalooyin ka mid ah dalkaasi saameyn uu ku yeeshay gaar ahaan Oslo deegaano hoostaga. iyadoo taasi ay jirto islamarkaana dad badan oo Soomaaliya ay ku sugan gudaha dalka Norway ay ka soo bogsadeen kadib markii la daaweeyay ayaa dhanka kale waxaa jira xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee laga soo doorto magaalada Bergen ee dalka Norway oo ka hadlaya saameynta uu cudurkaasi COVID-19 uu ku yeeshay guud ahaan dadka ku dhaqan dalka Norway gaar ahaan dadka Soomaalida. wariye Bilo Maxamed oo ku sugan magaalada Bergen ee dalka Norway oo raadiyaha rugsan halkaasi uga soo warama ayaa xildhibaan Cabdullaahi Cilmi Ibraahim oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Bergen la xiriiray islamarkaana weydiiyey Soomaalida sida saameyntu ugu yeeshay cudurka coronavirus. bismillah walaal horta waa arin aad u dhib badan run ahaantii waxaan arkaynaa in cudurka uu dunida oo dhan ku faafayo marka in dhibaato saas ummadaha caalamka oo dhan u saameysa inay dhacdo waa arin xanuunkeeda run ahaantii marka waa arin walwalkeeda leh. warbaahinta kaalin intee la eg ayay ka qaadanaysaa sida Soomaalida looga wacyigelinayo xanuunkan? walaal warbaahintu waxa waa meelaha ugu muhiimsan ee bulshadu maaragtay ku wada xiriirto ama laga helo talooyinka iyo wararka laga helo marka meediyaha ama guud ahaan waxay hayaan maaragtay wax aad muhiim ah shaqo maaragtay muhiim ah waana laga maarmaan in maaragtay la dhageysto oo talooyinkaas meediyadu ay bixinayso iyo maaragtay wararka meediya ay bixinayso aad bay muhiim u yihiin in ay gaarto bulshooyinka oo haddii waliba wacyigelin loogu daran aad bay u si fiican tahay. warar baa sheegaya in muhaajiriintu ay yihiin kuwa ugu badan cudurka uu ku dhacay Soomaalida saameynta ugu badan oo ku yeeshay sida ay qoreen warbaahin laga leeyahay Ruushka iyo kuwa Norway. arintaas sidee u aragtaa ka xildhibaan ahaan maxaase ka run ah? walaal horta waa in aad u dhib badan in maaragtay saameyn uu ku yeesho cudurkan bulshooyinka oo dhan meel kasta ay joogaan waxaa si gaar ah noo sii taabanaya in Soomaalida ay noqdaan dadyowga ugu badan oo saameynta ku sii yeesho. haddii aan tusaale u soo qaadano Norway oo kale waxaa la sheegay inay yihiin Soomaalidu dadka ajaanibta marka la yiraahdo dadka ugu badan ee maaragtay oo ku dhacay cudurkan. Sweden oo kale waan arkaynaa saas oo kale ayaa loo sheegay marka waan ka walwalsanahay run ahaantii aad bayna saameyn noogu yeelanaysaa anigu guud ahaan ka walwalsan oo la damqanayna cid kasta oo ku dhacay haddana waxay si gaar ah noo daabanaysaa markii la sheego in Soomaalidu yihiin dadka ugu badan ee saameyn uu ku sii yeeshay oo ku dhacay aad bay noo xanuujinaysaa run ahaantii waana arrin aan ka damqanayno. ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u jeedin lahayd Soomaalida guud ahaan? waxaan guud ahaan u jeedinayaa in la sameeyo maaragtay horta marka koobaad in Ilaahay loo dhawaado oo maaragtay imtixaanada la marayo loo dulqaato allana ay noo dhaweyso taas waa taas ta labaad oo ah in maaragtay la raaco maaragtay talooyinka ay bixiyaan howlwadaanada caafimaadka haddii ahaan lahayn kuwa dawliya haddii ahaan lahaayeen maaragtay kuwa maaragtay u shaqeeya isku shaqeeya marka guud ahaan talooyinka la bixiyo hay'adaha caafimaadka ay bixiyaan meel kastaba joog ama Soomaaliya joog ama wadan kale joog qurbaha in talooyinka la qaato dadka caafimaadka iyo maaragtay hay'adaha dawliga ay bixinayaan in la qaato lana joogo maaragtay inta la awoodo la isxakameeyo oo la yareeyo usutanka iyo is aroorsiga laguna
dadaalaan nadaafadda kolley maaragtay Soomaalidu inta badan way ka warqabaan talooyinka la bixiyo marka talooyinka sala raaco ayaan ku soo kaabsanayaa oo maaragtay dadka caafimaadka ka shaqeeya talooyinkooda in la qaato oo maaragtay qof kastaba uu xil iska saaro arrintaas inuu naftiisana badbaadiyo nafafka dadka kale na uu badbaadiyo insha Allah kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdullaahi Cilmi Ibraahim oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Bergan garabka xisbiga shaqaalaha oo u waramayay raadiyo Rugsan aad ayuu mahadsan yahay xildhibaanka